cawaysi wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta telefishinka BBC London wararka ugu waaweyn waxa kamida iyadoo kumanaan muhaajiriin naftooda ku soo biimeeyay si ay Yurub u soo gaaraan ayaa waxaan la kulanay dad aaminsan in badbaadinta la badbaadinaya ay soo dhiiri gelinayso dukaanka weyn ee Nakumatt oo ku leh in ka badan 60 xarumood bariga Afrika ayaa khatar ku jira kadib markii lagu yeeshay 170 milyan oo dollarka Mareykanka ah muusiga laftiisana waxa loo isticmaalaa in lagu qaboojiyo dadka buka iyo dhakhaatiirta daryeelaba gudida midowga Yurub ayaa u qoondiyay 90 milyan oo dollar oo kaalmo ah qaxoontiga ku qulqulaya Talyaaniga si looga qaado culayska dhibaatada qaxoontiga Yurub qaxoontiga ayaa imika meel adag laga istaagay dalka Talyaaniga gudihiisa dhaqdhaqaaq cusub oo garabka midig ah ayaa sheegaya inay sameynayaan wax kasta oo ay ku ilaalin karaan astaanta dalkooda Yaasmiin Axmed ayaa ka waramaysa doontan yar ee haabaysa badda waxa ka buuxa dad soo galooti ah sanadkan gudaheeda waxaa soo galay in ka badan 80,000 oo qof oo ka yimid dalal kala duwan waxay ka soo baxeen Liibiya waxayna u socdaan Talyaaniga ku dhawaan 2,000 oo qof ah dhinteen laakiin inta badan ma ahan dad ka soo qaxay dagaal ee waa kuwa raba nolol fiican muuqaalkan xayeysiiska ah waxaa soo duubay koox oo isku magacaaba Identitarian oo saldigoodu yahay Austria iyo Faransiiska waa koox yar oo sii badanaya waxayna rabaan inay joojiyaan dadka soo galootiga ah agaasimahooda Talyaaniga wuxuu sheegay inay Yurub ka difaacaan dadka soo galootiga iyo dadka ajnabiga waxaan u malaynayaa in magaalo kasta oo dhaqamo badan leh inay sidoo kale ka jiraan xag jirin iyo qalalaaso ay sameeyaan soo galootiga iyo waxyaabo kale badan tani waa socdaal qaab kale ah sababtoo ah dadka waxa Yurub u yimaadaan waxay og yihiin in qof uu badbaadin doono NGO-yada waxay la shaqaynayaan ciidamada badda ee Talyaaniga laakiin nidaamka sharciga ee dalka ayaa baaritaan ku bilaabay in NGO-yadu ay badbaadinayaan dadka soo galootiga mase inay caawinayaan dadka sharci darada ku soo galaya dalka ujeedadu waa mid bini'aadanimo oo kaliya badbaadinta dadku marmarka qaar waxay keenaysaa jebinta xeerarka iyo sharciyada caalamka che sono violatrici di leggi nazionali ma u malayna inay NGO-yadu oo badbaadinay dadkan inay dhiirgelinayaan kuwa bini'aadamka ka ganacsada dhab ahaantii haa waa run waxaa lagu qiyaasiyaa inay sanadkan 250,000 ay soo galeen Talyaaniga ayaga oo ka tagay Liibiya kumanaan qof ayaa badda ku dhintay arrintan xal ma loo heli karaa faahfaahin dheeraada oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya moobilkaaga bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta wasiirada arrimaha dibadda ee Sacuudiga Imaaraadka Carabta Bahrain iyo Masar ayaa ku kulansan Qaahira iyagoo gorfeynaya khilaafka ka dhaxeeya iyaga Qatar waxay joojiyeen xiriirkii hawada badda iyo dhulka ee iyaga Qatar ka dhaxeeyay bil ka hor waxayna ku eedeynayaan Qatar inay caawiso argagixisada caalamiga ah isla markaana ay ku dhowdhowdahay Iiraan Qatar ayaa iyadu dafirtay eedeymahaasi dawladda Shiinaha ayaa maanta ku wareejisay hay'adda socdaalka IOM ee Soomaaliya alaabo ku kacaysa 1 milyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka barakacayaasha ah waxay ka koobnayd bacaha roobka iyo qorraxda laga galo caagadaha biyaha lagu qaato bustayaal iyo maacuun Bilayska Kenya ayaa u sheegay BBC-da in dable hubaysan oo loo maleynaya Al-Shabaab inay weerareen saldhig bilays oo ku yaala magaalo xeebeedka Lamu ee dalka Kenya oo u dhow xadka Soomaaliya ciidamada gurmadka degdega ah ee Kenya ayaa markiiba ka jawaabay weerarkani kadib markii ay heleen xog sireed mustaqbalka dukaanka taariikhiga ah ee ugu weyn Kenya ayaa khatar ugu jira sabab dhaqaale xumo
dukaanka Nakumatt oo ku leh in ka badan 60 xarumood bariga Afrika ayaa ku jira deyn dhan 170 milyan oo dollarka Mareykanka waxay joojiyeen inay qaataan shaqaale cusub waxayna awoodi laayihiin inay bixiyaan kirooyinka lagu leeyahay iyo alaabo la dhigo khaanadaha alaabta la saaro oo imika qaarkood ay haawanayaan Suhayba Maxamed Badqas ayaa warbixintan inoo haysa sanado badan dukaanka Nakumatt ayaa ku ammaanaa adeega ballaaran uu bixinayay balse dhawaanahan qaanadahooda ayaa aad u marnaa haddaba waa maxay sababta dukaankan uu la daalaa dhacayo inuu macaamiisha u sahlo xitaa waxyaabaha qutul daruuriga ah waan la shaqaynaynay dadka alaabaha inoo keena si aan u hubinno in badeecooyinka dukaanka aysan inaga gu'in balse sida aan rajaynaynay arrimaha uma dhicin wadahadal ayaase hadda inoo socda si aan ugu heshiinno qorshaha bixinta lacagaha ujeeddaduna waxa ay tahay inaan wada shaqayno innagana aan la kulanno baahida adeeg ee macaamiisheenna dukaanka Nakumatt wuxuu albaabada u laabay dukaamo uu ku lahaa Uganda halkan Kenyana 2 dukaan ayaa la xiray iyada oo ay kuwa kalena wajahayaan alaab yari hase ahaatee waxa taagan walaac ah in dukaankan laga badbaadin karo musallafida qaanadaha in muddo ah waxba lama saarin mushaarna lama bixin haddaad eegto dhaqaalaha aasaasiga ah tani waa astaan digniin diraysa oo aad u dheer una muuqata waxa aan arkaynana waa xaalad ah in arrini ay faraha ka baxdo waxay ila tahay inay dib ugu laabtaan bilowga waana inay degdeg u sameeyaan iyadoo alaabaha ay ka sii dhammaanayaan kaydka dukaamada Nakumatt ayaa macaamiishuna ay sii yaraanayaan si aan carruurtayda ugu soo gado shukulaato aad ayaanse uga niyad jabay in dukaanka aanan laga helaynin dabcan waxaan arkay tiro dukaamo ah mana ogi inay la yimaadeen istaraatiijiyad ka wanaagsan tan Nakumatt 25 sano ee la soo dhaafay dukaanka Nakumatt waxa uu kamid ahaa dukaamada loogu ixtiraam badan yahay ee ku yaala bariga Afrika balse dhaqaale xumada jirta awgeed ayaa dad badan waxa ay la yaaban yihiin in halganka uu ku jiro dukaankan ay u suuragelin karto in dib lagu hiiso ugu istaago hubaal la'aanta ayaa sidoo kale saameynaysa tirada shaqaalaha ninkan oo kamid ah shaqaalaha ayaa arrintan igala hadlay asaga oo magaciisa qarinaya mararka qaar mushaarka ayaa dib u dhaca deyman ayaana nala ku leeyahay sida bixinta kirada korontada iyo biyaha mararka qaar milkiilaha guriga waa uu kaa xiranayaa gurigaada maamulka Nakumatt ayaa sheegaya in ay rajaynayaan cayminta 14 milyan oo dollar marka la xiro qaar ka mid ah dukaamadooda aan faa'iidada badan soo saarin kumanaan kun oo qof ayaa ka qayb galay dibadbaxyo ka dhacay guud ahaan Turkiga oo dhan dibadbaxyada ayaa lagaga soo horjeedaa xukuumadda madaxweyne Erdogan dibadbaxyadan oo loogu magac daray socodka cadaaladda ayaa ka dhashay xadhigga xildhibaan mucaaradka ahaa laakiin markii dambe waxay noqdeen kuwo baaxad weyn oo lagu diidan yahay dib u socodka dimuqraadiyadda Turkiga Qaalib Xasan Baaruud ayaa ka warramaya Turkiga waxaa dib uga bilaabmay dhaqdhaqaaqii mudaharaadada tallaabo kasta oo ay qaadaan waxay ku dhawaaqayaan u lugee cadaaladda 10 kun oo qof ayaa socod ku yimi magaalada Istanbul iyagoo ka soo baxay caasimadda Ankara oo u jirta 450 kiiloomitir socodkan ayaa bilaabmay kadib markii la xiray xildhibaan mucaarid ah laakiin hadda waxa uu isu bedelay mid baaxad weyn kulayl karkaraya iyo roob ayay u dulqaateen si ay uga soo hor jeestaan sifaynta lagu samaynayo shaqaalaha kadib afgembigii dhicisoobay sannadkii hore in ka badan 50 kun oo qof ayaa la xiray 140 kun oo kalena shaqadii ayaa laga eriyey hogaamiyaha mucaaradka ayaa bilaabay dibadbaxyadan 68 jirkan ayaa muddo badan loo arkayay nin jilicsan laakiin hadda waxaa lagu tilmaamaa gaandhiga cusub waxaan doonaynaa inaan Turkiga ka dhigno ilbax cadaalad leh ee ma ahan mid lagu xiro xildhibaanada suxufiyiinta iyo dadka tacliinta ka shaqeeya ma jiro garsoor cadaalad ah waynu wadaynaa dagaalkeenna ilaa aan ka helno dimuqraadiyad una dhaco maamulka keligii taliska ah inta badan dadka jidadka maraya taageero ayay muujiyaan laakiin marmar dadka soo hor jeeda ayaa shida heesihii ololaha ee Erdogan madaxweynaha ayaa sheegay in dibadbaxayaashu ay la jiraan argagixisada hakan ayaa taa ku taageeray madaxweynaha waxa uu yiri cadaaladdu waa ta maxkamadda taalla ee kuma jirto kicinta dadka xisbiga mucaaradku waxa uu hoy u yahay argagixisada iyadoo oo waddankayagu dhimanayo hadda nasasho ayay kulaylkii ka qaateen si ay u daweeyaan dadka ay cagaha biyuhu ka galeen
waxay qorshaynayaan aroortii marka waagu baryo inay halkan ka jarmaadaan dibadbaxani waxa uu cod siiyey dad badan hase yeeshee weli aad ayay uga fog yihiin waddadii ay rabeen inay Turkiga saaraan wararka ciyaarahana weeraryahanka Barcelona Messi ayaa ogolaaday in kontraadkiisa uu kordhiyo taasi oo ka dhigan inuu joogayo inta laga gaaray 2021 soddon jirkan ayaa Barcelona ku soo biiray isaga 13 jira waxaanu saxiixi doonaa heshiiskani markuu ka soo noqdo tababarada Messi waxa uu yahay ninka ugu goolasha badan horyaalka La Liga isagoo dhaliyay 349 gool Arsenal ayaa maanta soo afjartay heshiiska weeraryahanka Faransiiska u dhashay Alexandre Lacazette oo ka soo wareegay kooxda Lyon Arsenal ayaa kula soo wareegtay 55 milyan oo dollar ciyaaryahankan kadib markii uu maray baaritaan caafimaad ciyaartooygan ayaa qaranka Faransiiska u soo ciyaaray isagoo ahaa ciyaartooyga labaad ee ugu goolasha badnaa horyaalka Faransiiska dhaliyayna 275 gool Mark Cavendish oo ah ciyaartooy baaskiilada oo British ah kuna jiray tartanka Tour de France ayaa ka jabay garabka kadib markii ay isku dhaceen horyaalka caalamka Peter Sagan Cavendish ayaa suxu lagu dhuftay markii tartanku bilaamayayba Sagan ayaa laga reebay tartankaasi imikana bal xagga awoodda muusiga aynu eegno waxaanu halkan idinku soo gudbinaynaa muusiga iyo sida uu wuxuu bedeli karo xaaladaha bukaanka ku jira cusbitaalka Manchester iyo waliba shaqaalaha caafimaadka ee iyagu dadka halka ku jira daryeela Cismaan Cabdi Xasan ayaa inoo haya sidan ma ahan sida lagu yaqaano qaybaha aadka loogu baahan yahay ee isbitaalada balse isbitaalkan Manchester waxay ka noqotay mid joogto ah ilaa Juulaydii hore muusikiista ayaa u garaaca muusiga bukaan ku jira isbitaal waxaana muuqata farxadda ay taa keentay waxaan is arkay anigoo ku jira qaybta dadka dhaawacoodu halista yahay waxay ila noqotay mid niyad xumo waxay ahayd fikrad ka timid Helen Ashley Tyler intii ay joogtay oo dhan isbitaalka waxa wax ka bedelay muusig ay koox garaacaysay oo TV-ga ka socday daqiiqadii aan dareemay in aan mar kale noolahay waxay ahayd mid wax iga bedesha waxaa dhammaaday dareenkii ahaa in aan go'doonsanahay kama fikirin xaaladda aan ku suganahay iyo xanuunka ii hayay oo ma aanan dareemin waa intaan sheegi karay isbitaalka markaan ka soo baxay waxay durbaba si iskeed ah muusig uga bilowday isbitaalka waxay go'aansatay in ay bilowdo muusig laga tumo qaybta gurmadka degdega ee isbitaalka taasi oo keentay wax weyn shaqaalahana way ogolaadeen muusigaas runtii waa dareen wanaagsan marka muusiga la daaro ayay xasilooni dareemaan si aan u ogaanno sida muusigan uu qayb uga noqday isbitaalka ayaa maalin kadib qaraxii Manchester waxaa Richard Felher oo si joogto ah muusiga uga garaacda halkan uu kaalmo u noqday muusigeeda qaybta gurmadka degdega waxaan ogahay in shaqaalaha aysan ku farxaynin mar walba talada aan helayno ayaa ah intaas ayaa nagu filan oo aan u baahnayn sidaa darteed ayaan uga dalbaday in aan imaado haddii ay la tahay mid ka mid ah kalkaaliyaasha ayaa igu tiri toddobaadkan aad ayuu u xumaa maantana waxa keliya ee naga maqan arrintan ayay ahayd ugu dambayntiina waa waxaanad maalin walba arag jidkan highwayga ah ee ku yaala Austria ayaa shalay ay ku qalimay gaari xamuul oo siday kumanaan digaag nasiib wanaag badankoodii way badbaadeen waliba waxay heleen waqti ay ku luga baxsadaan intaan kooxihii gurmadku soo gaadhin jidkaasi ayaa 10 kiiloomitir gawaadhidii maraysay istaba taxantay 4 saacadood oo ay halkaasi ku xanibnaayeen intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii caawa waa ku mahadsantihiin daawashadiinna intaaynu mar kale dib u kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo